بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ناكسن إذا أهانتين با داودياش إذا قيمها إيقايها له ميل البعض إذا داوانيسان ويوتيوب جنال كآمنة معلن وحاندي رجينا يا إنا بش إيا برارك وجرتين ميل البعض جوبتان هدي إلهي يرهدو وحرمنا إنا كهذلنا إن هدي إلهي يرهدو معلومها إن قصو آدن موضوعي يرير أو كو آدن wanaaga bulshooyinka iyo dhaqamada markii laga hadlayo wanaagyada waxa yiraahdaa ninka ragga wanaagiisa waa raganimadiisa halka ay gaarsiiso yaani raganimadiisa Soomaaliinta badan waxay yiraahdaan nin rag ah ma aha ninkaas waa nin rag ah markuu uu leeyahay nin dhib badan nin foodo badan nin dadka yaani dhibahaya dariska dhibahaya caa'ilada dhibahaya xaaskiisa dhibahaya ilmihiisa dhibaya ma ahan nin rag ah waxa lagu leeyahay ninkaas waa nin muxtaram ah wanaagsan wax bartay diinta bartay maadiga bartay jamaacada masaajidka salaada kula dukada qaraabada xiriiriya qoyskiisa ka adag xaaskiisa u dabacsan marka raganimadiisa halka ninkaas ragga dhaqanka bulshada uu uga jiro ayaa waxa la yiraahdaa nin raga wanaagiisa waxa ay ku xiran tahay raganimadiisa iyo hadba sida uu dhaqmo wanaaga gabadhana waxa la yiraahdaa waa hooyanimo maxaa yeelay gabadha ayadoo gabar ah lama tilmaami karo wanaageeda heerka uu gaarsiisan yahay laakiin markii gabadhi ay hooyo noqoto waxay soo saareysaa ubadkaasi waxa ay soo dhaxgalayaan bulshada marka ay soo dhaxgalaana waxa la arkayaa dhaqamadooda iyo sida ay dadka ula dhaqmayaan ubadkaasi hadii ay yihiin ubad wanaagsan waxbarashada ku fiican macalinka ixtiraamaya maamulka ka dambeeya dariska ka xishoonaya yaani waxbarashadooda daneynaya waalidkooda u dabacsan waxa la yiraahdaa hooyo wanaagsan ayaa ubadkaasi dhashay maxaa yeelay wanaaga hooyada waxa ka tarjumaya hadba sida ay ubadkeeda u barbaariso amaba ay u rabayso wanaaga habeenkiina waxa la yiraahdaa waa xasiloonida amaba deganaanshaha يعني قفك بنا آدم كمكي وهبينك جارو معناته ودن شقوينكي وحبرشة مكي وكي ماذا مركي وجوي دجن قالوا أيا وحال يرادا حسلوني وناجا أوبت كان وحال قلت الماما حد بس يد أوبت كاسي لو بربارية أو أي هو يدا أما أباها أي أوبر باريان أيا وناجا أوبت كان لقلت الماما محايا لا أوبت كمكي سي وناجا سلو تربية أو دين الإسلام كوحيابها أي قبته لقلت تربية أو دينتي لبرا أو وحبرشة لقولة دالو أو لبرا حقوق والدك dariska macallimiinta dariiqa ay marayaan dadka ay la dhaqmayaan ee kulleeyihiin markii la baro caruurta ayaa waxa la yiraahdaa wanaaga ubadka waa tarbiyada ay kala yimaadeen gurigooda amaba qoyskooda marka wanaagyadu waa ay badan yihiin wanaagyada bulshaduna ma ahan kuwa lagu soo koobi karo halkani laakiin markii aynu ka hadlayna gabdhaheena Soomaaliyeed qaasatan waxay leeyihiin wanaagyo fara badan oo aan la soo koobi karin maxaa yeelay gabadhu waxay qaadaysaa mas'uuliyad weyn markii ay noqoto qoys waxa ay mas'uul ka tahay gurigaasi ilaalintiisa nadaafadiisa habeentiisa iyo waliba nafteeda iyo jirkeeda ay mas'uul ka tahay maxaa yeelay gabadha Soomaaliyeed waxyaabaha lagu tilmaamo waxa kamid ah in ay yihiin gabdho karti leh gabdho adag gabdho ma sha Allah dhaqanka iyo diinta intaba ku wanaagsan marka waxaanu jecelnahay hadii Ilaahay yiraahdo isbuucii soo socda inaan ka hadli doono dhaqanka iyo wanaaga bulshooyinka aynu ku dhaxleenahay aynu ku noolnahay caalamka aynu saaranahay sidaas daraadeed asxaabteyda qiimaha iyo qaayaha leh waxaan jeclaan lahaa inaad comment igula soo wadaagtaan hadba barnaamijyada aad danaynaysaan hadii Allah uu dali oo noo ogolaado wanaaga bulshaduna waa is-ixtiraamka iyo is-qadarinta aan isku leenahay maxaa yeelay bulsho kasto oo wanaagsan hadii aad aragtaan waa ubad wanaagsan hadii aad aragtidna waa hooyo wanaagsan hadii aad aragtidna tarbiyadeeda iyo dhaqankeeda asal ahaan ayaa aha mid wanaagsan waa walaashina aamina macallin oo idin leh waqtigu ha idin wacnaado meel walba ay joogtaan wixii su'aalahana qaybta comment-yada ayaan ku balansanahay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.